بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وحده ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سوري واد والله لها قارية خيرك جعل مانتي والله رواني سلامة يا إلهي بما هاد اسكره مركز وكل عليي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله دائما وأبدا، الحمد لله، شكر لله. سودواد والله لها قارية خيرك جعل أحبابي دمانتي وين السلام يا سودوادا ما توحيني وضع. ما شاء الله تبارك الرحمن، فكرة عجيبة وما شاء الله تبارك الرحمن دينتين أنا قصوبا ما شاء الله. أين تهي إن دمانتين كفائدة سنة والله لها قارية. ما شاء الله والله لها قارقة فكرة سؤالك وبلابنيسا أحبابي. waxaan ku jirnaa bishii barakeysnay khayrka badnayd, weliba tobankii habeen ee khayrka badnaa ee ugu dambeeyay. Dhammaanteen waan soo kacnaa, waan ducaysanaa, ilaahay khayr baan ka rajaynaa. ilaahay subxaanahu watacaala in badan baan barinaa. habeenka khayrka badan inaan la kulanno baan jecelnahay dhammaanteen walaalaha qaaliga ah. haddaba walaalaha qaaliga ah, markaad soo kacda habeenkii ducaysanayso, salaada sujuuda ku ducaysanayso, aad gacmaha kor hoosanayso, ilaahay baryayso, ducaysanayso, ma soo xasuusataa walaalada hadday asxaab tahay, hadday ehel tahay, haddii macnihii islaamka ilaahay ay tahay, ma soo xasuusataa oo markaad gacmaha u hoorsanayso dad magacooda ilaahayow hebel dhibaatada ka saar, ilaahayow hebel waxaasi ma tiraahda axbaabi oo mid midna u xustaa oo mid mid ma u xustaa walaalaha qaaliga. maanta walaalayaal, dadka ehelada iyo asxaabtii walaaluhu cadowga isku yihiin oo midba midka kale wuu xasdayaa. haddaba waxaa fiican dadka walaalada ah ama asxaabta ah ama ehelka isku ah inay isku duceeyaan walaalayaal. xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa ducaau dahrulqayb, ducada qofka walaalkiis isagoon ogeyn uu dahrulqaybka isagoo ogeyn uu u duceeyo mustajaaba weeye, lama soo celiyo. ilaahayna subxaanahu watacaala adigana wixii walaalka ugu ducaysay buu ilaahay subxaana watacaala ku siinaya. walaka mithlaka ayuu dhahay, malag ayaa wuxuu ku dhahay xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam, adigana waxaa leedahay waxaa walaalka ugu ducaysay ayaa leedahay. maasha allah tabaaraka raxmaan. runtii mustajaabadaas in laga faa'iidaysto weeye walaalaha qaaliga ah. oo markaad macnihii adiga meel ka tabanayso, tusaale ahaan marka adiga awlaad haysan, qof walaalkaay ah oo og tahay ina awlaad la-aan yahay ama guur la-aan yahay ayaa dacaysa, ilaahayo qofkaa walaalkay meeshaasuu ka tabanaya, ilaahu ka tiiri, ilaahu guur wanaagsan sii hebel ama heblaayo, ilaahayo awlaad sii hebel ama heblaayo. marka adiga aad duruuf ku hayso oo maal haysa, ilaahayo hebel qof duruuf haysatoo kale taqaanid baa dhahaysa, ilaahu hebel hebel ama heblaayo hebel, ilaahu duruuftaa ka saar. hooyada oo kale markaad janno rabtid, markaa rabtid cidqu min annaar, waalidkaa u ducee, ilaahu hooyaday naarta ka xoree, ilaahu walaaladay naarta ka xoree, ilaahu ummadda islaamka naaraha ka xoree. keligaa lama ducaysta walaalaha qaaliga ah. marka ducaau dahrulqaybka waxaa laga yaabaa 20 macnihii hami ama hadaf aad leedahay adiga inaad gaartid, 20 qof oo walaalo oo kale oo meeshaas aad ka tabanaysid mid mid uga tabanaya aan magacyadooda inta soo qaadatid ilaahay subxaana watacaala ugu tegi kartaa. markaasuu ilaahay subxaanahu watacaala adigana kusi waa mustajaaban, lama soo celiyo xadiiska nabiga calayhi salaatu wasalaam. walaka mithlaka ayuuna malabku ku leeyahay, waad helaystaa. ma fahantay walaalaha qaaliga? marka maasha allah ijaabo weyn baa halkaa ku jirta oo dad badan ay garanayeen axbaabii ka faa'iidaysta. waxaa jirta axbaab filaa qiso cajiib ah maasha allah tabaaraka raxmaan, diinteena macaan ku soo aroortay. saxaabiga jaliilka ahaa abu dardaa allaha ka raali noqdee aa wada garanaysaan, axaadiista badan soo wariyey, ayaa wuxuu yiraahday markii aan tukado buu dhahay, sujuudda aan ku ducaysanayo uu dhahay, waxaan ducada ku xusaa buu dhahay 7 min ikhwaani ayaa u duceeyaa, 7 walaaladay ka mid ah. weliba wuxuu dhahay magacyadooda ayaan magac u sheegaa buu dhahay, mid kasta magaciisaan xusaa, ilaahayo hebel meeshuu ka tabanaya ka tiiri, ilaahayo heblaayo meeshay ka tabanaysa ka tiiri, ilaahayo heblaayo saas weeye, ilaahayo waxaasi u duceeyaa buu dhahay. ka warran walaalaha qaaliga, janno ugu ducee, adduunyada ugu ducee, wax walba khayra ugu ducee. ka warran walaalaha qaaliga, maasha allah tabaaraka raxmaan. marka walaalaha qaaliga ah waa inaan ka faa'iidaysano, waayo mustajaabo weyn baa halkaa ku jirta walaalaha qaaliga ah. marka ka warrama sida asxaabigaas oo kale, 7 min ikhwaani ayaan sujuud ugu duceeyaa buu dhaha. axbaabi minku soo madha waqti aan 2 qof sujuuda ku xustay xataa magacooda, hooyada macaan tii adduunka kugu soo tiiriya tacbeeshay, aabaha macaan xataa sujuuda ma ugu ducaysa.
weligaa ya allaha sujuudda xataa magu ducays infaada walaalaha marka dadka aan garanayn maanta ogaada dadka leh macnihii cilmigaas oo macnihi ku baraarugsanayna ku baraaruga walaalayaal hala isku duceeyo walaalayaal sujuudaha la isugu duceeyo marka kale aada salaada ku jirin ducee dadka magacyadooda xus meelaha ay ka tabanayaan xus insha allah ilaahayna subxaanahu watacaala adigana walaka midlaka ayaa lagu dhahaya adigana waxa ugu dacaysay hooyada macaan waxa ugu dacaysay adigana waa helaysaa فأنت ولا لها قارقة مركة ما شاء الله تبارك الرحمن أنك فايدة سن ولا لها قارقة أجرك عظيمك إجابة داس عظيمك أنك فايدة سنو لما أنت ولا لها قارقة خير فرحة بين رجينيا أنا اسكسو دعين ولا لها قارقة أنا وإيدي دعية إلهيو ولا لها إيقو حيران متك هذا إيقو صوبير إيقو هوري إيقو حرنا إلهو قفل بميشو كتمنية كتيري إلهو قفل بميشو كعينيا كعيلة رأيها لها ولا لها إذن كان يسو دعية خير إيا فرحة إجابة إنه الله سبحانه وتعالى نسيو أي إله سبحانه وتعالى كرجيننا إلى رحمن الرحيم كذا ما شهينا وذا قرقارو وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.